السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة شرفت ماموس كي كرامة مدوين سلامينا يكسر دوادا كنال كينا عافيماتك يا دريال كعافيماتك ونماتك سوق عدن دونا ما ينكويق دونو قابك أدو إلالينا يسو إسلامك كان دباتدا يحنوك يا دبتا أدو غير علينا يسو أذكرا إلالينا يسا عافيماتكودا cadaashahooda iyo quruxdooda waa ilkahaaga ayaynu doonaynaa inaynu clipkan ku eegno. Ilkuhu waxay ka mid yihiin meelaha ugu qaalisan ee jidhkeena, waxaanay ka mid yihiin meesha ugu qofku arko ee mararka ugu horeeya indhuhu ay ku dhacaan. marka waxaynu u baahannahay insha Allah aynu doonaynaa halkan inaynu iskaga sheegno inaynu ku soo qaadano clipkeenan saddex wasiilo ilkahaaga ku ilaalinayso. iliga waxa ugu faraha badan ee dila ee baabi'iya waa laba arrimood baa ugu badan. koowaad waa lack of personal hygiene, nadaafadda iliga oo hooseysa waxay tahay ta ugu faraha badan ee baabi'isa. ta labaad waa accumulated or excessive sugar, macaanka oo isku tuura oo xadaaf ku noqda iliga dushiisana waa uu dilaa oo uu baabi'iyaa. qodobka labaad ee soo raaca waa ice ama barafka. qodobka saddexaad cafwan intaas ilkaha way baabi'isaay ogow. waa halka ay ka bilaabanto infectionku, barta uu ka bilaabmo inay iligu kaa jabo ama kaa daato ama ay kaa xumaadaan. haddaad saddexdaa ka taxadirto, nadaafadda iligu hadday fiicantay, macaanka aad ka ilaaliso, qabowgana aad ka ilaaliso, iligaagu raandhiis buu yeelanayaa, tayana wuu yeelanayaa. taa xusuusnow. haddaba caddaanta iyo dhinaca quruxda aynu u nimaano. laba wasiilo ayaad ilkahaaga ku caddayn kartaa adiga oo markaas aan dhibaato kala geysan. kow, inaad soo qaadato dhuxusha oo aad ku cadaydo intaad aada u dunto oo aad budo ka dhigto. inaad aayar ilkahaaga ku cadaydo waa ta kuu caddaynaysa ilkahaaga ee kuu qurux badnaysiinaysa, laakiin waa inaanay adkaanin oo aanay ciridka wax kaa yeelay. qodobka labaad ee kale ee runtii isaguna aadka u muhiimkaa, inaad soo qaadato milix isla markaas aad liindhanaan aad ku darto oo milixda iyo liindhanaanta iliga aad ku caddayso. jeermiskana way ka dilaysaa, muuqaalkooduna caddaan ayuu noqonayaa. haddii aad labadaa wasiilo aad iligaaga u samayso, labadaa dariiqo ama performances ama methods aad ku samayso, insha Allah ilig fiican oo qurux badan oo tayo leh oo caddaana ayaad heli doontaa. haddaad laakiin saddexda aynu ka dignay aad samayso, labadana aad samayn weydo, iliguna waa kaa xumaanayaa, quruxdii caddaankii iliguna ma jiri doonto haddii Ilaahay ka dhigo. intaas ayaynu kaga tegaynaa clipkii aynu isku xasuusinaynay faayaha iliga iyo quruxda iliga iyo qaabka loo ilaaliyo caafimaadkiisa, loo daryeelo ee runtii looga taxadaro dhib kasta iyo dhibaato kastoo ku dhacaysa iliga. intaasu waa inta ugu muhiimsan. saddexda horeynu tilmaamnay fadlan ka taxadar, labada dambaynu sheegnayna fadlan la ogow iliga, la ogow oo ku samee. aad baad mar labaad u mahadsantihiin. waqti aad u qurux badan iyo nolol wanaagsan baanu idiin rajaynaynaa. fadlan la sii wadaaga, u sheer gareeya. kanaalkeenu waa cusub yahay, inuu bulshada inoo wada gaadho ayaynu aad u jecelnahay. mar labaad ayaynu dabcan sidaa iskaga tegaynaa shaarka iyo commentka iyo subscribe-ka intaba insha Allah si kaliya laaba ayaynu u soo samayn doontaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.